dadka run uu sheeg waliga been ha sheegin oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabadu waxay ku yiraahdeen yaa rasuulallah niga muuminku fulo ma noqon kara waa noqon kara buu rasuulku yiri niga muuminku ma aragtaanay bakhayl ma noqon kara uu noqon kara buu rasuulku yiri markaaba nabiga lagu yiri nabi allah ninka muuminku been ala ma noqon kara markaaba nabigu yiri muuminku been ala ma noqon kara buu yiri iimaanka iyo beentu isma galaan amaano waa inuu qofka muslimku yeeshaa sidqi waa inuu yeeshaa uu noqdo run sheege as-sidqu tuma'aniina buu nabigu yiri wal kidhibu riba beentu qofka shaki bay ku abuurtaa shaki iyo waswaas iyo cabsi bay ku abuurtaa halka runtuna qofka muuminka ay siisa ma aragtaan nabad uu ku helo cadaaladna qofka muslimku waa inuu yeeshaa cadaalad labada ilmoodeed wada dhashay baa la rabaa inaad u cadaalad samaysid halkaa baa shariicada islaamku cadaaladda ka bilowday saxaabi baa nabi maxamed ula yimiday inankiisii buu wadaa farasna uu wadaa markaa buu yaa rasuulallah wiilkan waa wiilkaygii carruurta asagaan ugu jecelahay faraskana isagaan u hadiyeeyey buu ka yidhi markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi walaalihiisii isaga la dhalatayna ma wada siisay fardahaasoo kale ma wada siisay maya ma siina laakiin isagaa akhlaaq wanaagsanoo isagaan la jeclaaday markaa buu nebigu yidhi waryaa ama wada sii ama ka daa buu nebigu ku yidhi